saalaxna waxaan leeyahay saalaxow waxaan maqli jiray fiqi tolkii kama janno tago fiqi tolkii kama janno tago laakiin waxaad ilowday inaad konton tahay haddii arrintu ay noqotay qabyaalad iyo irmaan waraabsina dee annaga kuwa noo jooga ha caddeeyeen mowqifkooda sidaa saalax u caddeeyey iyana ha caddeeyeen mowqifkooda waxaan qabaa anigu dowladdan aan ka codsanaynaa mas-uulka hadle mas-uul saaran maaha waa mas-uulkii labaad ee xukuumadda hadday afkaartaa la qabto oo fakarka dowladdu uu kaa yahayna dee dowladdu waa hadday ku aamustaa oo uu u yidhi saalax ra-iisul wasaare ku-xigeenku haddii aan mowqifkeedu kaa ahayna oo mowqifkeedu uu yahay waxay u dhisan tahay ay tahay midnimada ummadda Soomaaliyeedna waa inay dib u caddaysaa mowqifkooda ma waxaa failure ah siyaasiyiinta ama mas'uuliyiinta Somaliland ee ilaa iyo maanta oo ay 2 bilood ku dhowdahay la dhacay madaafiicda BM-ka iyo hoobiyaha iyo waxa la midka ku garaacaya guryaha maatadu ay degan tahay oo caruurta iyo maatada ku leeynayo ku diminaya mise waxa failure ah dhaqan kale war midnimaanu doonayna war haddaad go'aysaan idin la go'i mayno ma waxa failure ah ninka shalay wuxuu dowladii Soomaaliyeed ku duminayay oo kula dirirayay oo ahayd oo ka cabanayay usagu maanta sameynaya miya failure waad ogtiin gobolada Sool iyo Sanaag waa bridge-kii isku xirayay Soomaali arintaas Soomaali badan ma fahamsana xataa wax laga yaabo madaxda qaarkeed aanay fahamsanayn waa bridge-ka isu haya Soomaali kala go'eeda labada gobol بسم الله الحمد لله الذي كفى وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مركز كواد إن شاء الله وحنا كتشرها بالرمضان بشهر رمضان وربا برتمه هذه أي نكتشرها أو عاوة وحنا شن يطبعنا تهيبان أمرينيا إلهي وحي ورا عمرين سميننا هينا قاقبلو waxa dambe insha Allah waanu sameyn doonana Allah inaga aqbalo ummadda muslimiinta ah dhamaan insha Allah Ilaahay ka aqbalo acmaasha wanaagsan kuwii Ilaahay ugu dambi dhaafana Rabbigay ha ka dhigo gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed dhawaab badan baa iska jira waa bil Ramadaan khayrkeeda wadataa Ilaahay waxa ka rajeenayaa wixii dhib oo Soomaali ka dhex jira ilaahay inuu soo gabagabeeyo oo ka dhigo kuwii ugu dambeysay oo dhibo Soomaali ka dhaxdhaca ilaahay saasan ka bariyay rabbi inta kadib waxaan rabaa inaan aan ka hadlo hadal maanta social media-ha wareegayay oo ka soo yeeray ra'iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Saalax hadalka marka dhowr qodob baan iska taagi doonaa oo kooban anigu aan ku fogaanayn laakiin waxaan rabaa inaan ka hormariyo bal waxa ka jira ama issue ka taagan gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood ee magaalada madaxda gobolkaas arintaas waxa fiican horta waxa sida uu yahay in loo fahmo halka waxa yaala laba mabda waxa lagu dirirayaana waa labada mabda Soomaali oo dhan baa qabta cidii iska saaraysa iyada sheegi doonto oran doonto anagu midnimo ma rabno ma qabno mabda Soomaali oo dhan waxay qabtaa midnimo waa mabdaas مبدأ اللباد oo lagu dagaalamaya waxa weeye waa gooniyo goosi oo ay rabto jamhuuriyadda ismagacawday ee Somaliland marka waxa isweydiin leh Soomaali midnimadu xagee bay ka joogtaa xagee inaga joogtaa hadana Soomaalinahay midnimo waa wixii ugu qaalisanaa oo aynu haysanay Soomaali hadaynu nahay inaynu hoos wax u fiirino oo meela aad u liita oo hooseeya aynu wax ka eegno oo qabiil iyo waxa la midka ah waxa igala qurux badan inaynu meel sare ka laangoosano ama aynu wax ka fiirino maxay tahay war midnimada waad ogtiin gobolada Sool iyo Sanaag
وبريجكي اسكو خريي سومالي أرنتا سومالي بدل ما فهم سنة حتى وحلقة يا مدحنا قار كنا فهم سنين وبريجكا سوحيا سومالي كلاجو أيضا لبعض عقبض أوكي dadka ka dagaalamaya iyo hawsha ka jirta iyo dadka ku diriraya mabda'a midnimada ummadda Soomaaliyeed shaqada ay hayaan miyaanay ahayn shaqadii Soomaali oo dhamirahayd waa su'aal miyaanay ahayn shaqadii dawladda Soomaaliyeed loo idmaday oo dawladda Soomaaliyeed mas'uuliyadda ugu weyn oo ay leedahay waxa fiican in waxa si fiican loo fahmo mar haday sidaa tahay oo labada mabda' is hayaan aniga waxa ila qurux badan inaynu mabda'a midnimada waan qaba Soomaali oo dhan midna bay qabtaa cidii iyadu iska saaraysa oo hoos wax u eegaysa oo qabiil iyo sheeka aad u lidato raqiisa iyadu gadaysa iyaday u taal laakiin Soomaali oo dhan waxaan aaminsanahay wixii doonaysa waa midnimo qof kasto maanta Soomaali loo weydiiyo midnimo iyo kala go' ka rabtaa midnimo u oranaya marka Soomaaliyay waa inaan fahamnaa halka waxa ka jira inay tahay midnimadii Soomaaliyeed oo lagu dirirayo ama sharaftii Soomaaliyeed oo lagu dirirayo waa in sida loo fahmaa horta mabda'a inta waan ka hormarinaya okay marday saa tahay waxa la yaab ah oo cajiib ah dawladdii Soomaaliyeed ee u xil saarnayd ama ummaddu ay u dooratay midnimada ummadda Soomaaliyeed in ay iyadu maanta ay istaagto wadatuhun istaagto waxaan saa u leeyahay ma moogi dawladdu inay mowqifkeedii cadaysay oo waliba madaxweyne xasan sheekh oo mowqifkiisa cadeeyay oo uu markuu Mareykan joogay cadeeyay oo Soomaaliya markuu joogay cadeeyay isagoo aan wax gabasho lahayn waa taas ma moogi waxaan kala moogeyn dawladdu xukuumaddu intay fadhiisatay inay iyaduna ay mowqifkeeda ku aadan ay ka hadashay wasaaradda arrimaha gudaha matalaysa go'aankoodii ku hadashay laakiin biyaan dadku ka shakin karin ama miyaanay wadatuhun ahayn in mas'uulkii labaad ee xukuumaddu uu yiraahdo dadkii midnimada ku dirirayay oo ku dagaalamayay oo midnimada Soomaaliyeed ilaalinayay uu duro ama wax ka sheego ama uu yiraahdo ama uu nasaho oo bariyeero maamulka goosadka ee Soomaaliland miyaanay wadatuhun noqonayn miyaanay u baahnayn arrintaasi dawladdu inay dib ugu noqoto haddii ay dawladdu mas'uuliyadeeda dareensan tahay shayga koowaad ee dadkan iyo dalkan ay u ilaalinaysaa marka diinta laga yimaado inay midnimada tahay ummadda Soomaaliyeed waayo mas'uulku wuxuu ka hadlay wuxuu sheegay dagaalka laascaanood ka dhacay inay failure-kooda ay yihiin ama dadka sababta inay yihiin isimada dhaqanka waanu arkay inuu ku gafay okay taas markaan isku taago marka wuxuu yiri waa failure siyaasadeed ma waxa failure Soomaaliya idinkaan idin weydiiyaa laascaanood sidii wax uga dhaceen waad ogeydeen sidii dagaalkaasi ku bilaabmay iyo qalaasahaasi waad ogeydeen ummad hal doorkeedii habeen walba la dilayo ayaa shacabkeedii kacay dumarkii iyo caruurtii oo mudaharaadaya ayaa suu iyo dhashiika madaxa lagala dhacay ma mas'uuliyiinta Soomaaliland ee waxa sameeynayay baa failure mise waxa failure isimada dhaqanka ee ilaahay hadda midnimada ummadda Soomaaliyeed u taagan oo markasto ay hadlaan leh annagu Soomaali ka go'aymayno waxaanu ilaalinaynaa waa midnimada ummadda Soomaaliyeed ma waxa failure siyaasiyiinta ama mas'uuliyiinta Soomaaliland ee ilaa iyo maanta oo ay laba bilood ku dhowdahay la dhacay madaafiicda BM-ka iyo hoobiyaha iyo waxa la midka ku garaacaya guryaha maatadu ay degan tahay oo caruurta iyo maatada ku leynayo ku diminaya mise waxa failure dhaqan kale war midnimaanu doonayna war hadaad go'aysaan idin la go'aymayno ma waxa failure
ninka shalay wuxuu dowladii Soomaaliyeed ku duminayay oo kula dirirayay oo ahayd oo ka cabanayay isagu maanta sameynaya miya failure mise waxa failure ismada war midnimo doonayna midnimo Soomaaliyeed war waxaana la ku dilayaa waa guryaha iyagiina war waxaana la ku dilayaa waa dadkood ismadu xaq bay u leeyihiin inay u damqadaan dadkooda oo dhashiikay suu madaxa laga dhacay bay arkeen inay u damqadaan oo yiraahdaan madaxa kor u qaada oo midnimada Soomaaliyeed difaaca anu inay ku saxsan yihiin ma qaba failure ma aha cidda failure kaana way muuqataa waxa markay isweydiinta waxay tahay dawladdu marka mas'uuliyiinteedii sidaa u hadasho miyaan looga shakin karin midnimadii laftigeedu inay iyadu wax yeelayso miyaan looga shakin karin wadatuhun oo midnimadii ay dhaawac ku gaarsiinayso waxaan qabaa anigu dawladdan aan ka codsanaynaa mas'uulka hal mas'uul saaran maaha waa mas'uulkii labaad ee xukuumadda hadday afkaarta la qabto oo fikirka dawladdu uu ka yahayna dee dawladdu waa hadday ku aamustaa oo ay u yiri Saalax ra'iisul wasaare ku-xigeenku haddii aan mowqifkeedu ka ahayna oo mowqifkeedu uu yahay waxay u dhisan tahay ay tahay midnimada ummadda Soomaaliyeedna waa inay dib u cadaysaa mowqifkooda tuhunka galay waa inay dib u cadaysaa Saalaxna waxaan leeyahay Saalaxow waxaan maqli jiray fiqi tolkii kama janno tago fiqi tolkii kama janno tago laakiin waxaad ilowday inaad konton tahay oo kontonna xagga tahay waxaad ilowday mas'uuliyadda aad ku fadhidid oo ah tii ummadda Soomaaliyeed ee waxa koowaad midnimada ahaa iyo calanka aad hoos fadhid oo kii Soomaaliyeed buluug ahaa oo ka dadkan lagu laynaya maxaad u qaadateen lagu laynaya inta abaad ilowday wax ka xoog weyn baa ku jiitay waxaan leeyahay oo inta ku daraya kaftana dawladdu mowqifkeeda ha cadayso haddii arrintu ay noqotay qabyaalad iyo irmaan waraabsina anaga kuwa noo jooga ha cadayeen mowqifkooda sidaas Saalax u cadeeyay iyana ha cadayeen mowqifkooda taa intaasaan kaga tegaya waxaan kaloo ka hadlayaa gefka loo geystay dhaqanka muddooyinkii dambe oo laascaanood dhibaatadu ka socotayba waxay ahayd wax caado ah in dhaqanka goboladaas la aflagaadeeyo mar la yiraahdo waa argagixiso mar la yiraahdo waa jabhad mar la yiraahdo waa dagaal oogayaal marba wax lagu sheego cidda wax ka sheegaysana waxa ahayd jamhuuriyadda Soomaaliland siyaasiyiinteeda iyo mas'uuliyiinteeda iyo kullu iyo shacabkeedaba qayb kamid wixii alla u naxariistay mooyaan tanna waxaan u qaadanaynaa inay tii u daba joogto iyadii inay daba joogto baan u qaadanaynaa dhaqankana waa ka raali gelinaynaa waxaan leenahay waxa idinku dhacaya waxa aad doonaysaan baa ka weyn oo ah midnimo ummadda Soomaaliyeed tan wada raadinaynana waa taa taan hore u raadinaynana waa taa goboladana waad ogeydeen muddo waxa khasab ah in la yiraahdo khasab baan idinku jaraynaa nala go'a Soomaalidiin nala noqda iyo noqon mayno hadda ka hor gobol Sanaag shaqo badan iyo hawl badan baa naga raacday intaanu aan gudoomiye ahaa shaqooyin badan oo ka qabtay baa jirtay waxa jirtay inaan ciidamo badan oo mushahar qaadanayay oo ay sheeganaysa jamhuuriyaddu aan waxa weeye ka soo saaray oo aanu fikirka midnimada u soo saaray oo ilaa 2500 oo dhadhow gaaray waxa jiray gobolka Sanaag gudoomiye gobolka inaan tanaasuliyay oo ka tanaasulay mowqifka Soomaalidiidka shaqadani shaqa muddo soo socotay ayuun bay ahayd laakiin tan waxay dheer tahay xabadda dhacaysa iyo dhimashada ayay dheer tahay laakiin taa marka aan u diriraynana midnimo ahayd tan maanta loo dirirayaana midnimadii ummadda Soomaaliyeed weeye war dawladay dadka shaqadiina haya oo difaacaya midnimada ummadda Soomaaliyeed haddaydan garab istaagaynin
oo aydan hiil iyo hoo waxay idinka baahan yihiin ba aydan isla garab istaagaynin billaahi calaykum ka daaya maxay ahaydeenay aflagaadada iyo waxyaabaha idinka gaadhaya oo deelqaafka ah ka daaya waxa maanta idinla gudboon waa inaad hiil iyo hooba isla garab taagtaan midnimada ummadda Soomaaliyeed difaaceeda haddii aydan taa samayna arintaasi waxay noqon doontaa taariikh waxaana dhici doonta Soomaali inay kala go'do oo bridge-kaasi go'o midnimada ummadda Soomaaliyeedna meel fog laga dooni doono laga raadin doono laakiin maanta way dhowdahay dad u taagan baa jira dad u dirirayaa jira dad ay dhiigooda ku talaaran tahay baa jira dad aan dawladdii mas'uuliyadda lahayd aan ahayn oo u diriraya baa jira arintaas dawladdu dib hay isugu noqoto wixii ka khaldamay na ha saxdo mowqifkeedana ha u cadayso dadka taana intaasaan kaga tegaya waayo haddii shacabkeedu ka shakiyo dee oo madmadow kala galo dawladda iyo shacabka wax badan baa inaga xumaanaya taana intaasaan kaga tegaya qodobkayga u dambeeya waxaan leeyahay waan ku gabagabeynayo waxaan la hadlayaa dadka degan goboladaas dadka gobolada degan muddo tiro badan oo waqti dheer ah ayay Soomaali midnimadeeda iyo sharafteeda iyo ciidadeeda u dirirayeen afi adinba dhibadanna way ka soo gaadhay oo tamaanta taagani ay ugu dambayso waxaan leeyahay ku sabra waxa la yiri raganimadu baa la isweydiiyay waxa la raganimadu waa maxay waxa la yiri waxoogaa aad cagaa dhulka ku sii adkaysid marka arintu dhabaqdo hawshu markay dhabaqdo oo labada coris galaan waxoogaa aad cagaa dhulka ku adkaysid oo aad ogaatid bal ciidankaagi baa guuleystay mise waa laga guuleystay marka cagahan dhulka ku adkaynayna waa u dhabaradaynayna waa u sabraynaa waxa aynu doonayno midnimada ummadda Soomaaliyeed taariikhdan aynu qori doonta haddii allaha wadari oo qolaado taariikhda ayaanu qori doonta shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed oo madaxa kor u qaada labada mabda ee diriraya waa midnimo Soomaaliyeed iyo gooni u goosi madaxa kor ha loo qaado saasna loo fahmo arinta meel aanay jirin iyo qabiil iyo meel hoosanayaan loo dhigin hada wabillahi tawfiiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh